بسم الله الرحمن الرحيم. وددان وود aad u qurux badan ما شاء الله. حسن لما نقضه هدا wax qurux badan ama wax fiican aragtid bini aadanka haysta waxa la dhahaa ilaahu asagana u saa'idi anagana nasiib insha Allah waxa ilaahay ka baryayaa maalin maalmaha kamid ah Soomaaliya saan ah ilaahay inuu na tuso aan duceysano hooyooyin Soomaaliyeed aan nahay wiilka xabada rida ee ka lagu dhufanaa hooyo Soomaaliyeed ah dhashay haloo duceeyo xilli kasto marka salaatu kadidii hada iska joogtidba mar walba ducee ducada mar walba ilaahay uu ka aqbalayaa intaana ka ahayn xiliyada ee malaa'ikta kula joogin markaad musqushu ku jirto kaleento ama aad qaawantahay badana malaa'iktu lama joogto sababtoo ah xilli situation kala ku jirta laakiin mar kasto oo meel joogto hadaad gaarigaaga wado hadaad gurigaaga cunto ku karinayso hadaad iska fadhiso hadaad ilmahaada iska haysato Soomaali ducay u baahan tahay maanta hala duceeyo inta laga boodisaanay ahayd waxba ma tarayso ilaahay baridiisa lagu maqada ilaahay la baryo qofkii ilaahay baryo wuxuu ka baryo uu siyaa Maryam bint Imraan hooyadeed ayadoo caloosheeda ku jirin ilaahay u barisay waana loo aqbalay ayada intii la dhaafiyaa waxa la dhahay Ciisa loo aqbalay ducada hooyadeed u duceysay Maryam bint Imraan ayadoonan ogeyn oo waliba u duceysanayso way iska duceysatay fiiri qofka bini aadanka haduu duceysto ducadiisa uu helaa aan duceyno hadda waliba xilligan aan jooga musaafir ahay qofka musaafirka ah baridiisa ilaahay uu aqbalaa ilaahay waxaan ka baryayaa Soomaali ayadoo nabad isku fiican meeshaas waa toll bridge lacaga ku bixin doona dawladda dhisatay sidaas oo kale ilaahay inuu naga dhigo qalbiga iga doomay meeshaan markaan soo maray daraadan soo maray laba maalin aan maqnaay hadda markaan soo laabtay meeshaan fiiri duuray ku taala waa cidlo sida loo kala dambeeyo nidaamka fiiri saas si ka fiican aan noqon karnaa laakiin maxaa u baahanahay isfahan iyo duco dadka ilaahay haday bariyaan qalbiyadoodu isku hagaajiyaa uqdada hal iska saaro xumaatada hal iska saaro waa la dhamaaday lama noolo maanta dhan saan waxay taraysa ma jirto ilaahay hala baryo ilaahay aan barino naftaydu ugu horeysa adinkana waa idin sheega ilaahay gabdha Soomaaliyeed oo ilaahay aan barino hooyada baryadeeda ilaahay uu aqbalaa hooyada baryadeeda inta qof oo bari ilaahay inta hooyadood u bariso uu aqbala xisaab ma leh aan barino ilaahay bini aadanka waa aragtay qof aad taqaanta maanta marka gacan u horsato ama qof aad qaraabo tihiin oo wax haysto ama waa aragtay sidoo ku tixgelina wax ku siinaayo haye maxaa u maleynaysaa ilaahaygi ku abuurtay ka badan oo ku siina adduunyada dhan uu leeyahay dadka ugu xoolo badan adduunyada inta la siiyay ilaahay waxba lama aha inuu adiga ku siiyo fiiri tusaale yar ilaahay dhulkii cirka asaga abuuray badda asaga abuuray bini aadanka asaga abuuray waxa soo dhan waa awoodiisa haduu badda soo xoolo lagu siiyay ilaahay inuu wax ku siiyay asaga agtiisa wax weyn kama aha nimcada ilaahay uu ku siiyay wayna alxamdulillah dhahdid beeraan leenahay ilaahay noo saayidiyo xoolaa leenahay ilaahay noo saayid maanta Soomaaliya maxay lahaynoo ka maqan waxaa naga maqan ina ilaahay barino ilaahay aan barino baryadeena insha Allah taala ilaahay wuu noo aqbalayaa walaalayaal naftayda iyo tiinaba waxaan idin dardaarmayaa inaan baryada ilaahay badino inaan baryada waxaan imtixaan waaye waxa maanta Soomaaliya ka socda imtixaan waaye ilaahay aan barino awoodiisa ilaahay aan ku barino asaga nabadda keeno asaga colaada wax kasta asaga keeno waxa dhacay bini aadanka way sameynayaan ma ahane yaa qadari Allah xasuusta ilaahay aan gadaal ugu laabano naftiina taas idin dardaarma fiidiyooga hadaa idin ku dheereeyeen iga raali noqda salaamu calaykum